gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha mudane Saadiq Abshir Garaad, Commissioner Cumar, madaxda heer state ee guddiga doorashooyinka ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Waqooyi Bari, bahda saxaafadda, gudoomiyaasha guddiga waaxaha ee caasimadda, odayaasha, dhalinyarada ama tiimka ka shaqeynaya diiwaangelinta. dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan mahad ilaahay ka sugo waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka shaqadan ay noo bilaabeen khamiistii bilowgeeda aynu daafurnay ee madaxweynaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari uu daafuray oo maalintii saddexaad inoo socota. mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan bogaadinayaa u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka shaqada diiwaangelinta ee maalintii saddexaad sida habsamida leh u socota oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenku. waxaan u mahad celinayaa tiimka ilaa heer dowlad goboleed ilaa madaxda xafiisyada fadhida, shaqaalaha, ciidamada iyo dhammaan howlwadeennada diiwaangelinta. mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celinaya. ilaa hadda oo aanu kormeerkii nahay annagoo matalaynay bulshadii, waanahay duqii caasimadda, gudoomiyihii degmada, wax dhaliila oo ii muuqda oo aan ku soo arkay goobihii ma jiraan. marka laga tago laba waaxood oo u baahan in loo kordhiyo seejooyinka ama goobaha ay ugu horeyso waaxda wadajir oo ay kala bateen dadkii iyo xafiisyadii lagu shaqaynayay. intaa marka laga tago wax dhaliila oo aan ku arkay goobihii shaqadu ka socotay iyo tiimamka shaqaynaya ma jiraan. taa waa caddaynaya bogaadin iyo in shaqadu sida ugu quruxda badnayd ay u socoto baan bogaadinaya. intaa haddaan ka tago waxaan ugu baaqayaa shacabka ku dhaqan degmada Laascaanood oo ay ugu horeeyaan shacabka caasimaddu inay u diyaar garoobaan qof kasta oo qaangaadha, miyir qaba, xiskiisu dhammaystiran yahay, sugay shuruudaha diiwaangelintu inuu mas-uuliyadu ka saaro inuu isdiiwaan geliyo. shalay waynu ognahay diiwaangelin baa halkan laga samayn jiray markii Somaliland joogtay. tirada dadka isdiiwaan geliyay waynu garanaynaa. diiwaangelinta ugu dambeysay ee doorashooyinka halkan laga galay 2021 39 baa iska diiwaangeliyay degmada Laascaanood. hadda magaalada kaliya ma gara gudoomiye waa degmadoo dhan. marka cudurdaar baynu haysanay. cudurdaarkaynu haysanay waxay ahayd dadkeenu markaa ma rabin maamulka kumana qanacsanay. maanta wax cudurdaar aynu haysanaa ma jirto. waxaa la dooran doonaa wakiiladii idinku matalayay golayaasha deegaanka iyo hadhow baarlamanka ilaa heer madaxweyne Soomaaliyeed. waxa ugu horeeyay ee la dooranaya oo wakiiladii idinku matalayay golayaasha deegaanka ninkii seexdaa Siciid Dibi Dhala. hadhow halkaa waanu ka maqnayn. halkaa matalaad kuma lihiin. qof walba adaa isu haya maanta. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. waxaan bogaadinayaa shacabka caasimaddu inay u diyaar garoobaan si ay isu diiwaangelin lahaayeen si ay u helaan inay gutaan xuquuqdooda dastuuriga